Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada ardayaal. Casharkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay horrifying conversation, wada sheekaysi waabsi ah. Horrifying conversation, wada sheekaysi waabsi ah. Ayaa bilaabay wuxuu leeyahay actually run ahaantii you are adiga waxaa tahay the one qofka whom qofkaasoo I always beat had iyo jeer aan garaaco with chat weliba sheekaysi aan ku garaaco and it is better for you waxaana ku fiican to warn yourself inaad iswaaniso and study well aadna si fiican wax u baratid. Actually run ahaantii you are adiga waxaa tahay the one qofka whom qofkaasoo I always beat had iyo jeer aan garaaco with chat weliba sheekaysi aan ku garaaco and it is better for you waxaana ku fiican to warn yourself inaad iswaaniso and study well aadna si fiican wax u baratid. B asigana ma yaraysanin fiir wuxuu leeyahay marka I know waan aqaanaa how to give sida loo siiyo a mold meat hilib balaq ah to the doggies eeyaha like you ee adiga oo kale ah. So sidaa darteed scatter soda what you intended waxaad ugu soo talgashay to our chat wada sheekaysigayna before I kick you ka hor intaanan ku darbeenin like ball sida kubaddii oo kale. I know waan aqaanaa how to give sida loo siiyo a mold meat hilib balaq ah to the doggies eeyaha like you ee adiga oo kale ah. So sidaa darteed scatter soda what you intended waxaad ugu soo talgashay to our chat wada sheekaysigayna before I kick you ka hor intaanan ku darbeenin like ball sida kubaddii oo kale. Ayaa dejinaya wada sheekaysiga wuxuu leeyahay fiir marka don't lose your temper ha xanaaqin and my question su-aasheedana should be waxay noqon doontaa how can we make sidee baan ugu dhihi karnaa our country dalkeena peacefully mid nabadaysan dalkeena mid nabad leh sidee baan ugu dhihi karnaa. Don't lose your temper ha xanaaqin and my question su-aasheedana should be waxay noqon doontaa how can we make sidee baan ugu dhihi karnaa our country dalkeena peacefully mid nabadaysan. B wuxuu leeyahay if we stop haddii aan joojino choosing inaan doorano a responsible government dowlad aan mas-uuliyad lahayn which can't maintain taasoo aysan joogtay karin haddana the peace nabadda and choose aana doorano trustful government dowlad aaminaad leh. If we stop haddii aan joojino choosing inaan doorano a responsible government dowlad aanan mas-uuliyad lahayn which can't maintain haddana aysan joogtayn karinba the peace nabadda and choose aana doorano trustful government dowlad aaminaad leh. Ee wuxuu leeyahay how do you see sidee baad u aragtaa the stability xasiloonida and security situation iyo xaaladda amniga in our country ee dalkeena. How do you see sidee baad u aragtaa the stability xasiloonida and security situation iyo xaaladda amniga in our country ee dalkeena. B wuxuu leeyahay really run ahaantii the security situation xaaladda amniga and stability iyo xasiloonidaba are not good ma fiicna nowadays maalmahani. Really run ahaantii the security situation xaaladda amniga and stability iyo xasiloonidaba are not good ma fiicna nowadays maalmahani.